Qisada aan maanta ka sheekeyn doono waxay ku saabsan tahay qisadii Aabaheen Aadam calayhi salaam. Aabaheen Aadam calayhi salaam ayaa maalin waxa uu u dirsaday ilmihiisa miraha jannada si ay ugu keenaan. Ilmihii waxa ay guda galeen raadinta miraha jannada ayagoo ka raadinaya dunida. Kadib waxa ay jidka kula kulmeen malaa'ig sita xunuudkii iyo kafantii lagu aasi lahaa Aadam calayhi salaam. Malaa'igtii ayaa ku tiri ilmihii Aadam calayhi salaam, intee ayaad u socoteen? Malaa'igtii ayaa ku dhahday ilmihii ayaa ku dhaheen waxaan doonaynaa Aabaheen ayaa noo soo diray miraha jannada si aan ugu keenno. Malaa'igtii ayaa ku dhahday aabihiin wuu na baxay, orda dib ugu laabta. Ilmihii waxa ay dib ugu laabteen aabahood. Malaa'igtii ayaa u imaatay. Kadib Xaawo ayaa aragtay malaa'igtii way nafatay. Waxayna ku dhigtay Aadam calayhi salaam. Malaa'igtii Nabi Aadam calayhi salaam ayaa ku dhahay idaa Xaawoy, waxa isu kay daa ma aniga malaa'igta Rabbigayga. Anigu waxaan dhashtay adiga hortaaye. Malaa'igtii waxa ay nafta qaadeen Aadam, ma ayna maydheen, waxay una mariyeen xunuudkii ama udgoon. Kadib waxa ay ku tukadeen meydkii, waxayna u qodeen qabrigii wayna aaseen. Malaa'igtii ayaa ku dhahday ilma Aadanow saas u duuga meydadkiina weligiin. Isxaaq waxa uu jiray 7 maalmood madoobaaday dayaxa iyo qorraxda, waxaana ooyeen uumankii 7 maalmood. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.